iyaduna muhiim in aan halkan ka cadayno haddaan nahay golaha shacabka inaan dhiirigelinayno dhismaha golaha adeega garsoorka haddii ay caqabado jiri jireenna inaysan jiri doonin oo si dhab ah loo wada dardargelin doono haddii uu ilaahay yidhaahdo oo sanadkan sanadkiisa garsoorkoo madax bannaan oo golihiisa leh oo kalfadhigiisa la furayo la heli doono hadduu ilaahay yidhaahdo cadaaladda waxaa ugu muhiimsan dowlad baan ahaan jirnay anigu ilaa iyo 2000 baan xildhibaan soo ahaa shaqaalaan lahaan jirnay ciidan baan lahaan jirnay garsooryaal baan lahaan jirnay wax mushaharana lama siin jirin shaqaana u dirsan jirnay waxaan dhihi jirnay kaalaya qaran difaaca iyo kaalaya dad kala garsoora garsoorku wuxuu qaranka ugu idman yahay ilaalinta isku xukunka iyo ku dhaqanka sharciga ilaalinta iyo korqaadda xuquuqda aadanaha xalinta cabashooyinka u dhexeeya muwaadiniinta ama muwaadiniinta iyo hay'adaha dawliga ah iyo sidoo kale ciqaabka iyo anshax marinta dambiilayaasha taas macnaheedu waa in garsoorku mas'uul ka yahay guud ahaan cadaaladda waddanka si muwaadiniinta Soomaaliyeed u helaan adeeg cadaaladeed oo waxlahaana oo ay fulinayaan adeegyaal daacad ah ammaano leh karti leh hufnaan shaqo lagu yaqaano aqoonna u leh shaqada ay qabanayaan barnaamijkii habka garsoorka ee nidaamka lagu saleynayo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka garsoorkoodu awoodahooda iyo ikhtisaaskooda iyagana meel fiican inay marayso laakiin weli uusan dhammaystirnayn codsanaynaa in la dhammaystiro haddii aan xafiiska xiraalinta qodobada noogu muhiimsan oo xukuumadda iyo baarlamankiiba waana hor fadhiyaan inoogu daran waxaa ka mid ah in lasoo dhammaystiro guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa maadaama darashadii laga fiirinayo ay tahay wax qabadka xukuumadda iyo qorshaha aan leenahay sanadka soo socda mise sanadkan aad joogto 2019 waxaa loo baahan yahay shirkan inaad si fiican aad uga hadashaan garsoorka haddaad tihiin waxyaabaha la rabo inaad qabataan ay ku jirto xarumaha garsoorka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhisidooda iyo halbeego kale oo maaragtay sidii garsoorka u shaqayn lahaa marka miyaynu hore u socon karnaa awoodaha sidaynu u kala leenahayna inagoo u baahan inaynu u kala yeelano marka waxyaabahaasoo dhan cidda fasiri lahayd ee kala hagi lahaydna waa garsoorka oo waax weyn iyaduna waa aynu maanta u joogno soo bandhigista shaqooyinka ay qabteen warbixintooda dhegaysan doonno iyo muhiimadda ay hadda garsoorka u leedahay haddaba si loo helo garsoor lagu soo hirto oo u kala xaq soora muwaadiniinta Soomaaliyeed u kala xaq soora dawladda iyo shacabka u kala xaq soora xukuumadda ama dawladda iyo saaxiibadeena mucaaradka ee qaylinaya waxa loo baahan yahay garsoorku inuu lahaado imkaaniyaadkii ama awoodii iyo kartidii ku filnayd ee uu ku shaqayn lahaa